بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردد MTC جروب يودمان أصحاب يوتيوب ومركل يعشر كيني مايكروسوفت أوفيس قيبتيس إكسل وأنا عشر كي أفراد عشر كينا ما أنت وحي نكو برندو أنها دي إدمو سدح فورمولا أو كم ده فورمولاياش الاستعماله مركة حساب لغا شغين آيو مايكروسوفت إكسل مركة هورو وحي نصوفرون إنا إكسل marka sidaan u soo furan halkan waxa noogu qoran magacyo iyo xisaabaad oo number ah hadaba waxaanu arkaynaa halkan saddexda formula isticmaali doono saddexdan formula oo kala ah numbering iyo cell iyo sum function hadaba si aan u isticmaalo saddexdan formula waxaynu koobi ka sameeynaa halkan xisaabta meesha ku qoran waxa isticmaali kartaa saddex wada markaad koobi sameynaysid mid koowaad highlight marka saartid waxa tagaysaa koobi halkay ku qoran tahay kadib waxa tagaysaa meesha aad dhigi lahayd waxaadna dhahaysaa best mar labaad baad tagaysaa meesha labaad waxaadna dhahaysaa best wadadaas waa isticmaali kartaa adigoo isticmaalaya freebonk wada labaad baa jirta highlight marka saartid waxaad tagaysaa ama waxa taabanaysaa keyboardka control plus c kadib waxa taabanaysaa hadana control plus v mar labaad waad ku celinaysaa control v waxa kale oo isticmaali kartaa markaad joogtid Excel highlight ayaad saaraysaa xisaabta aad rabtid inaad koobi ka samaysid kadib waxaad u soo dhaaracaysaa meesha hoose calaamad markay noqoto afar gees ayaad jiidaysaa left iyo wax isla qabanaysaa drag halkaas waxaad aragtaa in aynu koobi ka bixinay xisaabta meesha noo qorneed haddaba waxa aynu sameeyna waxa weeye saddexdan formula sidee loo isticmaalaa maxay si kaliyin formula koowaad waxa la yiraahdaa numbering ayaan isticmaali doonaa halkan waxaad arkaysaa total inay ku qoran tahay marka waxaan rabnaa totalkan lacagahan total kooda inaan halkan gelin ayaan rabnaa marka u horeeyo waxaad qoraysaa equal to qoraysaa sum bracket ayaad qoraysaa antaas markaad qortid waxaad isku daraysaa marka xisaabtan xisaabtu waxa u sareysa 40 plus 60 plus 50 plus 70 plus 80 kadib waxaad ku xiraysaa bracketka marka la xirayo waxa la qabtaa shift iyo 0 kadib waxaad aysaa inta waxaad aragtaa totalkan inuu noqday 300 waxaan isticmaalay numbering oo waxaan isku daray nambaro formula labaad waxa la yiraahdaa cells kan markii totalkiis la sameeyay number la isku daray maaye ee waxa isku daray waxa way seelal hadaba seelashada la isku daraa marka hore waxaad qoraysaa equal to sum bracket waxa lagu furaa shift iyo number 9 halkan waxaad qoraysaa marka hadda cellkan magaciisa qoraysaa cellka 40 magaciisa waa maxay waxaad aragtaa d inuu yahay anta marka aad u raacdo waxaad aragtaa 5 marka waxaad qoraysaa d5 ay qoraysaa plus d6 plus d7 plus d8 plus d9 kadib waxaad ku xiraysaa bracket inta baad dhahaysaa waxaad aragtaa totalka inuu isku mid yahay maxaa yeelay xisaabta hore aan koobi ka bixinay ayaa ahayd xisaab isku mid ah formula saddexaad waxa la yiraahdaa sum function hadaba sidee loo isticmaalo sum function marka isticmaalaysid highlight baa saaraysaa waxa kale oo highlight ku diraysaa cell empty ah cellkan waa halkii godkii la gelin lahaa totalkan kadib waxaad qabanaysaa si tartiib ah alt plus z cost waxaad aragtaa totalki inuu ku soo galay meesha loogu targalay saddexdan formula ee aynu maanta 10 ku soo qaadanay way kala fiican yihiin way si kala fudud yihiin hadaba kee u fiican kees u fudud si aan ku ogaano mid ku fiican horta fudeed waxaan aragnaa midka inuu yahay kan u fudud laakiin si aan ku ogaano mid ku fiican waxaanu sameeyay update ayaan ku soo darinaa update waxaad aragtaa halkan 40 inay jirto 40 ninkan Axmed hortiisa waxa ku qoran 40 tusaalaan Axmed wuxuu ka qaatay lacag 40 ah oo deen ah mar labaad uu ku soo noqday lacag kale uu ka qaatay oo 50 ah Axmed lacag waxay noqonaysaa 90 halkan totalkan waxay noqonaysaa marka 350 hadaba halkaas 90 geli tabka waxa laga soo biyaa update tab ay dhaysaa waxaad aragtaa halkan 300 isma bedelin waa inteedii darteed xisaabtan yara numbering haddii cellka aad ku soo darto update wax isbedel ah oo ay sameynayso malaan
marka xisaab ayaa sidaas kaaga lumi karta inaad isticmaashid maaha marka aad xisaabaadka isku dardaraysid. aye formulaga labaad oo ah sales ayaan ku dari 50 waxaana ka dhigay 90 waxaan dhahayaa tab marka ay isbedesho arkaysaa 350 way noqotay marka hore waxay 300 hadda waxay noqotay 350 marka selka hadii lagu soo daro update wuu ka ogolaan sidoo kale kan 90 ka dhig sum function asna wuu isbedelay. okay kan wuu haray hadda waxa tartanka ku jira waxa weey labadan waa sales iyo sum function haddaba labadan ayaan sii kala reebaynaa si aan u kala reebno waxaan sameeynaa right click insert waxaan ku soo dareynaa row cusub rowga cusub custom cusub ayaa ku yimid custom kan cusub Fatuma ka soo qaad magaceeda Fatuma waxay ka qaadatay lacag 100 shilin ah 100 ay ka qaadatay. okay markii lacagtan totalka lagu dar 100 waxa la rabaa 450 noqoto tab markaan iri wax isbedel ma sameeyin waad arkaysaa halkaan 100 ku dar tab leh waad arkaysaa 450 ama 450 ay noqotay marka kan sidaas uu ku haray waxa kaliya hada soo baxay waxa weey formula loo yaqaan sum function marka sameyn ahaan ama ka shaqeyn ahaan asaga u dhib yar oo waxa sameynaysaa dragging marka highlight saartid alt plus z custom qabanaysaa wax culus ma ka shaqeyntiisa sidoo kale update kasto ku dartid uu ka qaadan update ka lagu daray hadii sale uu yahay tusaalaan sale kan 90 ay ku jirto hadii aad 10 ku dartid oo tab dhahdid waad arkaysaa totalku uu sii bedelaya waxaad wata halkan xisaabta la geli sales ama row hadii xisaabta formula ay shaqeys ay tahay sum function hore bay ka qaadanaysaa marka mar walba xisaab isticmaalaysid waxa aad kugu dhib yar kuna sahlan update kastana ku sheega in isticmaashid sum function. casharkeena maanta inta ayuu ku yahay inta aynu ku kulmi doono casharkan xiga. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.